generaalka ugu sarreeya ciidamada Tigreega General Tadesse Wareda ayaa sheegay in ciidanka TPLF ay cagta mariyeen xogaga ciidanka huwanta ah ee ka dagaalamaya magaalada Arwa oo gabi ahaanba ay ka dhigeen wax ay dileen iyo wax firxaday sidoo kale waxa ay TPLF sheeganaysaa inay khalkhaliso ku riday ciidanka huwanta ah oo ay iyaga laftarkooda diyaaradahoogii dagaalku ay isduqaynayaan oo markaas ciidankooga ay duqaynayaan taangi iyo gawaadhida gaashaaman ee ciidanka Itoobiya iyo kuwa Eritrea waxaanay soo bandhigeen qaar ka mid ah gawaadhida dagaalka ciidanka Itoobiya oo la gubay taasi oo marka iyagu ay isku soo garab sawireen oo ay sawiraan ka soo qaadeen marka iyagu ciidanka TPLF ay ku garab sawiran yihiin gawaadhida waaweyn ee kuwa dagaalka ah oo marka ay sheegeen inay ka gubeen ciidanka Itoobiya sidoo kale General Wareda waxa uu sheegay in ay shax dagaal oo cajiib ah ay markaas haatan ku dagaalamayaan waxaanu sheegay ciidamadii Eritrea iyo Itoobiya ee Arwa ku sugan inay haatan afarta dhinac ka taagan yihiin kaasoo uu sheegay gabi ahaanba meel ay ka baxaan inaanu jirin intooda badanna uu sheegay in cagta bariyeen sidoo kale waxa uu guule ka sheegtay markaasi magaalooyinka Adigrat iyo Salambesa kaasi oo marka ay xoogga TPLF sheeganayaan in ay dhammaan magaalooyinkaasi la wareegeen oo haatan ay gam ka dhigeen ciidankii Itoobiya Eritrea dhulkaasi joogay ay dib xuduudda ugu celiyeen laakiinse waxa uu haatan sheegay General Wareda oo raaciyay hadalkiisa in haatan ciidanka Itoobiya iyo xukuumadda Itoobiya ay haatan u soo magacawday maamul cusub oo uu Tigreegu markaasi yeelanayo kaasi oo uu sheegay maamulkaasi in haatan la doonayo in laga howlgeliyo gobolka markaasi deegaanka Tigreega oo markaa maqaalo la keeno uu xusay markaa General Wareda sidoo kale in magaalooyin laga qabsaday ay jiraan laakiin waxa uu yiri haatan waanu jabhadaynaynaa magaalooyin la qabsado inaan dagaalka lagu guuleysan karin ayaan tusayna dhulka Tigreeg waxa uu noqon doonaa wiil qubuurahooda waa sidoo hadalka u dhigay Tadesse Wareda waxa kale oo xusay in ay xukuumadda Itoobiya u soo magacawday Dr. Alamu Same marka in uu noqdo hogaanka Tigreega waxa uu intaasi raaciyay inuusan Tigreega maamuli karin oo aysan suurtagal ahayn buu qorshahaasi dhinaca kale Getachew Reda afhayeenka isaguna u hadla markaasi inta badan xukuumadda Tigreega ama TPLF oo ka ficil celinaya warbixintii uu daabacay The Economist wargeyskaasi oo soo saaray markaasi sheegay in dagaalku maqale gaaray ayaa ku tilmaamay markaa waxba kama jiraan wuxuuna xusay in dagaalka ka socda meel in haatan dagaalku ka socda meel maqale u jirta 160 kilomitir oo aan haatan maqale la soo gaadhin waxa uu beeniyay markaasi warar la isla dhaxmarayo oo sheegaya in laga qabsaday TPLF airportka markaa magaalada Maqale haddaba inta haddii aynu kaga nimaadno sheegashada TPLF dhinaca kale xukuumadda Itoobiya ayaa iyaguna haatan waxa ay sheeganayaan ciidamada federaalka Itoobiya in ciidankii TPLF gabi ahaanba cagta la mariyay oo aanay jirin markaa ciidan hagaagsan oo Tigreega u dagaalamaya ama TPLF u dagaalamaya waxa ay soo bandhigeen markaasi ciidanka federaalka Itoobiya xabaal wareedyo waaweyn oo iyo markaasi ay sawiraan ka soo qaadeen kuwaasi oo sheegeen in lagu aasay gabi ahaanba ciidankii Tigreega oo markaa halkaasi lagu xabaalay iyaga madaxdoodiiba waxaanay sheegeen markaa haatan xukuumadda ay sheeganaysaa inay cagta mariyeen oo aanay jirin markaa TPLF haatan awood leh waxaanay sheegeen xabaalaha halkaasi ka muuqda oo muuqaalo sawiraana ay ka soo qaadeen oo markaa xabaalo badan ah in markaa ay yihiin kumanaan iyo boqolaal ciidamadii Tigreega iyo waliba generaaladii hogaaminayay bay yiraahdeen oo markaa halkaasi lagu aasay waxa xusid mudan in ay wacad ku martay xukuumadda Itoobiya markii ay bilaabaysay howlgalka saddexaad markaa ama dagaalkii saddexaad ee Tigreega in gabi ahaanba TPLF iyo generaaladooda ay aasi doonaan oo markaa ay tirtiri doonaan waxaana sheegeen haatan in 80% hadafkii ay lahayd xukuumadda Itoobiya ay gaadhay oo markaa generaaladii Tigreegu ay qubuurahaasi ku jiraan bay yiraahdeen ay sawiraanta ku soo bandhigeen haddaba si kasta ha ahaatee iyadoo oo haatan labada dhinac ay qolo waliba sheeganayso in ay guulo waaweyn ka gaadhay dagaalka ayaa waxaa jirta in wada hadaladii nabaduna ay haatan ka socdaan South Africa
oo markaa laga yaabo in maalinta axadda lasoo gabagabeeyo. beesha caalamka ayaa haatan ku dadaalaysa gaar ahaan Mareykanka iyo markaasi midowga Afrika waxay ku dadaalayaan markaa in TPLF iyo markaasi xukuumadda Ethiopia ay heshiis uun kala saxeexdaan ugu yaraan xabadda lagu joojinayo. haddaba iyadoo uu dadaalkaasi socdo ayaa haddaba waxaa jira dhinac waliba wuxuu isku dayaya ka kale markaasi inuu sutida u qabto oo curyaamiyo. dagaaladu way socdaan oo gamba la iska dhigayaa, wadahadaladuna way socdaan. waxaana la sheegay markaa haatan inuu yahay waan isdilaynaa waana wada hadlaynaa. kii roon baa reerka usoo hadhayana meesha way ku jirtaayo qolo waliba waxay doonaysaa magaalooyinka ugu waaweyn inay qabsadaan. iminka xukuumadda Ethiopia oo kale waxa ay gebiha isku dayeen inay la wareegaan magaalooyinka waaweyn ee Tigreeg oo dhan. waxay soo qabsadeen ognahay Shiraaro, Adiqrat, Adwa, يعني سلامبيسا inkastoo la sheegay TPLF ay sheeganaysa ilaa shalay in ay dib uga saareen Adiqrat iyo Slambeesa adwana aha u sheegeen markaa in lagu hareereysay yahay haatan sidoo Tadassa Wareeda ka dhawaajiyay. haddaba waxa isku xukuumadda Ethiopia sidoo kale ay sheeganayaan haatan in ay maqalle yar u jiraan. waxaana hadda wararka la isla dhexmaray ay sheegayaan maamulka cusub ee Tigreega loo soo magacaabay inay doonayaan xukuumadda Ethiopia markaa in ay ka dejiyaan maqalle oo halkaasi ay ka aramiyaan. wadahadaladii oo TPLF u socda ayaa maamulka loo Tigreegana la samaynayaa baa la yidhi. marka haddaba TPLFna waxay doonaysaa in iyadu ay Tigreega u taliso. xukuumadda Ethiopia waxay doonaysaa TPLF in laga takhaluso maamul cusub oo Tigreeg uu leeyahay marka halkaa laga sameeyo. marka haddaba wadahadalada nabad hadhow tole haddii la heshiiyo maxaa lagu heshiini waxaaba ka go'an xukuumadda Ethiopia maamulkan cusub ay samaynayso in ay markaasi halkaa ka howlgeliso Tigreeg ay ka shaqeeyaan. TPLF markaa maxay ka shaqeyn doontaa haddaba ay maamuliba la isweydiinaya. wixii lagu heshiin lahaaba hordhac waxaa tan dhinacyadu ay dagaalkiina wadaan maamulka la soo magacaabay. waxaa haddaba la isweydiinaya tadhow qodobada hadhow ka soo bixi doona maxay noqonayaan. waxaana dad badan ay ku doodayaan haatan ay leeyihiin wadahadaladaasi waxay u muuqdaan qaar iska cagajiida. dagaaladan ayaa moogtahay in la joojiyo ay tahay muhiimadda ugu weyn waxa weeye dagaalka la joojiyo. haddii dagaalkaasi la joojiyo wuxuu bal isku afkaran lahaa laakiin ilaa iyo haatan laguma guulaysin in xabad joojin la sameeyo. dhinaca kale waxa walaac weyn laga muujinayaaba wadahadalada nabadda. waayo waxa la yidhi guddidii ay dowladda Ethiopia u magacaawday in ay wadahadalada la galaan TPLF waxa madax looga dhigay markaa uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed madax uga dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Dameeka Makanan inuu iyo 6 xubnood oo kale toddobadoodaasi ayaa la magacaabay. Dameeka Makanan baa markaasi madax u ahaa guddiga khilaafka xalinayay ee la hadlayay TPLF. haddaba shirkan South Africa ka socda mabuu tagin ba Dameeka Makanan wuxuu iska joogaa markaasi Addis Ababa wuxuu la kulmayay markaasi Daraatoole shalay wuxuu la kulmayay hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan xagga dhaqanka iyo moogtay waxyaalaha literature ee UNESCO xubno ka socda ayuu Addis Ababa kula kulmayay. shirkiina wuxuu ka socdaa South Africa. marka 6 xubnood ee ay u dirtay markaa xukuumadda Ethiopia in ay la soo xaajoodaan TPLF waxaa la sheegay inay iyagu waxaan decision makers go'aan ma gaari karaan baa la yidhi. waayo dee guddoomiyahooda ka maqan oo ah Dameeka Makanan. marka waxay noqonayaan inay yidhaahdaan waxaan la soo tashanaynaa maamulka iyaga sare oo dib u soo noqdaan. taasi ayaa jirta inkastoo ay haatan cadaadis xooggan ay wadaan markaasi beesha caalamku in wuxuun lagu heshiiyo ugu yaraan xabad joojin in markaa South Africa lagu kala saxeexdo ayay doonayaan ka go'an tahay. laakiinse waxba saxiixi karaan baa haatan la leeyahay. dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia ayaa haatan waxa uu galay marxalad isbedbedel badan kaasoo markaa dhinacyada ku dagaalamaya ay qolo waliba ay sheegayso in ay guulo waaweyn ka gaadhay dagaalka. sidoo kale Generaal Wareeda waxa uu sheegay in ay shax dagaal oo cajiiba ay markaasi haatan ku dagaalamayaan. waxaanu sheegay ciidamadii Eritrea iyo Ethiopia ee Adwa ku sugan inay haatan 4 dhinac ka taagan yihiin kaasoo uu sheegay gabi ahaanba meel ay ka baxaan inaanu jirin intooda badanna uu sheegay in cagta bariyeed. sidoo kale waxa uu guulo ka sheegtay markaasi magaalooyinka Adiqrat iyo Slambeesa kaasi oo markaa ay xoogga TPLF sheeganayaan in ay dhammaan magaalooyinkaasi la wareegeen.